shan arrimood haddii aad samayn karto alla caas. wiil dhalinyaro ah ayaa u yimi caalimkii weynaa ee Ibraahim al-Adhabi waxaana ku dhahay sheekho waxaan hay wiil dhalinyaro ah oo dambiye badan sameeyay rabbigiina caasi oo ka fogaaday mana rajaynayo inaan sidan jannada ku galiyo ee sheekho waxaad samaysaa wax iga celinaya dambigaas oo qalbigayga ka dhigaya mid saafi ah oo Ilaahay quraata ku xiran kadib sheekh ayaa ku dhahay arrintu saastay shan arrimood haddaad samayn karto waad ka jawaabi karto macsida saad rabto samee oo mid rabtana samee midbati ka weentay walaw kaana kuwa weyn ha noqdaan kadib wiilkiira ayaa yaabay wuxuu sheegay sheekhu ku dhaho Ilaahay ka baq inuu sheekhu waaniyo wiilkeer kadib wuxuu dhahay bal shanta arrimood ii sheeg diyaar ayaan hay inaan sameeyo kadib wuxuu dhahay mid koobaad wax weeye haddaad rabto inaad Allah caasido cuntadiisa ka cunin يعني إلهي عنتديس نوع عنسا وانا العاصيسا إما كان لباس اسمه قشي هدايا ربتين إلهي عاسيد عنتديس صداف كذب عاس كذب والكراجات دهي وياك لا عنتك عنا هذا ألا عنتديس عنن يرزقيسا إلى عدك لرزق ما بحساه كذب يشيخ كل دهي عنتديس يرزقيسا يرحمديسنا وضعونسا وانا عاسيسا إساس ما يكون في عنتهاي كذب والكراجات دهي ما شيخ إساسه إلى ما في عنه بل مد الله بعد إيش mid labaad ayaa iyaduna haddaad rabto inaad Allah caasidid ha ku caasin dhulkiisa yani dhulkan korkiisa ha ku caasin Ilaahay yani haddaad rabto inaad Ilaahay caasid ha ku caasin dhulka korkiisa ee meelaha kale ku caasi kadib ayuu wiilkii radhay oo sheekhalay qorax ka soo baxdo iyalka qorax ka dhacdaba iyo inta u dhaxaysaba rabbigaas ayaa leh mid kale ayaa leh dhulkan ma jira lagu caabudo Ilaahay kadib ayuu sheekhu ku dhahay haddaba adigu Ilaahay dhulkiisa jooga oo dhulka korkiisa ku soconaya miyay kula fiican tahay inaad rabbigaaga caasido kadib ayuu wiilkiira dhahay ma sheekh ma fiicne ee bal mid saddexaad ii sheegayadana mid saddexaad ayaa haddaad rabto inaad Ilaahay caasido ku caasi meel uusan ka arkayn yani isagoon ku arkayn caasi oo meel laga arkayn aad oo alindhiisu yaan marnaba ku qaban kadib wiilkiira ayaa dhahay oo sayay suurtagal ku tahay inaan Alla ka dhunto isagoo abuuray oo xitaa ku qalbigeeda ku jira miyana iska qarin karaa taas macquul maaha kadib ayuu sheekhu ku dhahay way miyay kula fiican tahay in Allah ku arkaya oo indhiisa kuga haya inaad caasido kadib ayuu dhahay meeshii saas ma fiicna ee mid afraad igu dar mid afraad ayaa iyaduna hadduu malkumadu ku yimaado waxaad ku tiraahdaa bal yar sug inta toobad keenayo oo amal saalixana aan soo sameeyo kadib ayuu wiilkiira dhahay oo ma iga yeelaye ee markiiba way uga qaadiyaan nafta taasna macquul maaha kadib ayuu sheekhu ku dhahay oo miyay kula fiican tahay inaad hadaba la caasidid kadib ayuu dhahay meeshii lama fiicne ee bal mid sanaad igu daryeedana mid sanad ayaduna markay malaa'igta naartu ku timaado oo xaga naarta ku kaxeenayso naarta diid oo waxa tiraahdaa naarta galimaye ay sii daaya kadib ayuu dhahay subhanallah oo ma yeelayaan hadal beega sugi maayane wajwaji ayay ugu tuuriyaan naarta kadib ayuu sheekhu ku dhahay oo waaye may kula fiican tahay inaad Alla caasido adigoo naartaas u jeeda kadib ayuu wiilkiira dhahay intaas ayaa ugu filan intaas ayaa ugu filan intaas ayaa ugu filan sheekhow ee halkaas ugu jooji kadib waxa la wiilkiira ilaa maanta dhimanayay sheekha ay ag fadhiyeen oo halkaas ay ka wada qaadanayeen cilmiyada noocyada kala duwan iyo jihaadkiisaba ilaa markii dambe ay geeridu kala kaxisay labadooda hadaba daawade isagoo Alla intaas oo dhan ku jeeda oo raxmadiisana cunaysid mina la fiican tahay inaan caasino Alla isagoo arkaya oo dhulkiisana ku socono oo naxariistiisana aan cunayno hadana sina la fiicnay inaan Alla caabudno oo diidaysid in Ilaahay caabudo oo sujuudin dhulkiisa iyo raxmadiisa iyo cuntadiisaba u dhaaf وشنتاس arrimood aan ku sheegay samee haddaad rabto inaad Ilaahay caasido kadibna cid wax ku qabsamaysaa ilaa intay ay toobad keen doortaa oo goorma ay toobad keen doontaa ma waxa toobad keen doontaa marka aad soo gasho mise waxa toobad keen doontaa marka aad xaj qabato oo soo cimrisato mise marka aad weynaato ay toobad keen doontaa midkeena garan maayo xiligu dhimanayo sidaas daradeed marnaba ku xisaabtamin waxa ka fog ee hadda isla joogo Ilaahay toobad keen ee hadda isla joogo Ilaahay toobad keen oo Ilaahay toobad ay aqbalay intaad hadhow marka qabriga lagu geeyad qoomameen intaad hadhow marka naarta lagu geeyad qoomameen hadda si qoomamee ilan kulliba marka lagu geliyo qabriga aad oranaysaa Ilaahay cidi oo dunida marka lagu cidi waxa soo sameyn doona amal wanaagsan laakiin midaas macquulna maaha marnaba macquul noqomayso xitaa haddii macquul noqoto Ilaahay ku soo celiyo halkiyun aad macaasida ka sii walaaqaysaa inta noolay intaan isasana intaan san ka faa'iideysano marka subaxii maas ka dhacdo Ilaahay soo noqoyo habeenkii kulay marka habeenkii maas ka dhacdana Ilaahay wuxuu kulay subaxii soo noqo marka Ilaahay soo noqotana Ilaahay wuxuu ugu farxaa sidii hooyo ilmaheedu uu ka lumay oo kale oo markaa shay ay farxday saasoo kale ayuu Ilaahay noo farxaya marka soo noqoto
إميانا قرح منين إن ذي لا كفر حسو هذا شداك إنك كعادة سيد إلى مركز توبت كانوا ودم بقسي ولا قتل شدان كانت كفر حين الساعة هذا إله كفر حسنا ربي سبحانه وتعالى إسنوا كافر حنيا لكن الله سبحانه وتعالى ذات كحنا جسوا إسنا عذاب كيس أي قوضا بين دونا الله سبحانه وتعالى هنجيله كي توبت الرقبة